3 واكشن ماذا عصبية نكشن كاس أو ذكر نتسوي طبعا كدع كاسي تماشى ماذا فهمي بقى هياي روج بوك aad baan idin salaamay meel kasta caalamka joogtan si kasta ila jaan qaadaysan waa madaxweynihii Facebook ee Axmed Cabdullaahi soo dhawaada asxaab kala baadiyooda u jeeday soo dhawaada wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaat boqorka reer qadho deesh ciyaarta ka tahay هايجي تكتجن محد ما هيساوي لي سبودري فيسبوك واحد بدن عن وضع ماذا فهمي بقى واحد بدن عن وضع سنة بس من أنا أركتي أنا ما أنت سنة أسبوعية طبعا وهي أنت سنة كان بشوى مركي كوبات يعني صار فريستا شاشتها إجا أركتان حساس تيفي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا يجش تنتهي مالك مركز كم معانا على قرم حكم معانا ما تقنا سنكرتها فاطمة رجع قاعدة ترمى دحمينا في فيسبوك أديك حقيقي يجي بطهاي ماذا أكتر هني وندوه هي محاول هيسابوا للجامع شعال بان هياتي فاطمة طرشة صديق سقط كلمة هين أبو أنت السلام لمن هوا دكوس ومرنيا حفصة النورة حنشده وين وانطفي أبرقايا جري وبهتكن واقو السلام تسلام لميدا هودا كوسو مريه ورورنا وضع نسيه أنو إلهي بيلا صندوق ميو حوما قرن كران سالم هاشتي عبد محمد عمر نوقت واتساب بضتان يمكن مساجدين ما آخرين كرا كودها warkiyo kowano kombu ku jiro hana igu qasbina kowdaha dee warban idin wadaay wax iga dhageysta ma fahanteen بربلوكادي وقرصود الشاكد halkaas ku noqo warwarkiyo koono kombo ku jira aniga horta Facebook ma soo kale maanta kooda Facebook live anu waaba nacay ma fahantay shahaada liga siiyo waa ka qalin jibiyay ma karateen laakiin maanta niyo arin bay soo kaliye aan warka idin siiye habsan nuura qaybta protocolka inaad tahay waa ogahay marka maanta waxa i soo kaliye ma taqaanaan xalay baa waxaan taawaday clip ay kabadhi soo tuubtay ooyeysa inaad ila aragteen ma garanayo walow aanan kabadha wallahi magaceeda garanaynin aniga kabadha waxay tiri gabooyanahay kowdhaha waxay tiraahdaa haddaan gabooyanahay waana la yasaabay tiraahdaa gabadhu waa si hadalka u dhigtay soomaalidu wayna quursataa bay tiraahdaa qabiiladeeda kala kadisa meel kastoo joogno annagu dad islaamaanu nahay dad soomaaliyeed baanu nahay dad hal maalin uu khaltamo la dhaho calashaan de bakti bay cuneen baanu nahay
dee weliba baktiga waana la cunayo dee idinkuna waa iska matashisan annaguna maanan iska matashin sida la-aaligeed bade magaca gabooyo noo raacay marka magicii waxaad noo isticmaasheen inaadna adoonsataan calashaan xoolaha ayaga naga qaadataan maxaan ku dhahay aad nagu dhaga hadashaan maxaan ku dhahay ama gacanta nagala hadashaan ama afka nagala hadashaan idinkoo dees haba yaraatee aan waxba noo aabayeelin waa say gabadhu hadalka u dhigtay marka erayada noogu dhawaaqdaan bay tiraahday gabadhu ama aad noogu yeedhaan waxaa la yidhaahdaa bay tiri midkaan tumaal baad noogu yeedhaan eraygaas maxaad noogu yeedhsan anigu gabooya nala dhahaa gabooyo waa inaad noogu yeedhaan waa say gabadhu hadalka u dhigtay gabadhaas horta mid baan rabaa inaan weydiiyo soomaalidu way kala laajado duwan tahay way kala teegaano kala gedisan tahay marka soomaalida qaar waxaa jirta magaca gabooyo la yidhaahda aan aqoonin laakiin yaqaano ereyga midkaan waa laajadooda u fiirso qaarkoodna gabooyo iyo midkaantoona ma yaqaanaan ee waxay yaqaanaan ereyga la yidhaahdo ma dhimaan haddaad ku tiraahdo gabooyo mataqaanaa maxaa gabooyo la dhahaa wuu kuleeyahay haddaad ku tiraahdo mataqaanaa magaca midkaan wuxuu kuleeyahay ma aqaanay anu ma dhimaan baan aqaanaa u fiirso marka anu waxaan aaminsanahay ereyga midkaan ereyga gabooye ereyga ma dhimaan in ay yihiin hal kelmad oo laakiin soomaalida maadaamay kala laajado duwan tahay laajadahaas ay ku baxeen ee laakiin wax yasitaan ah ama quursi ah inuusan ahayn ereygaas baa ani ahaantay aan ogahay laakiin adigu waad dhibsata shakhsiyan markaan gabadhii ooyeysa xalay aan kilibkeeda daawaday aan ka hadliyo weeyaan waad dhibsato waxaad leedahay anaga gabooyo waxaan loogu yeedho ma xumo magaca gabooyo la dhahaa la idinku yeedho laakiin ma isku raacsan tihiin qaar imika waxaa jira gabooyo ah oo magaca gabooyo aan aqoonin laakiin isku yaqaano ma dhibaan ama ereyga midkaan midda kaleeta ereyga midkaan mid waad ooga xanaaqi karaysaa walaashay mid baad ooga xanaaqi karaysaa midkaad ooga xanaaqi karaysa wuxuu yahay dad waxaa jira markay qof bakhayl oo kaleetoo la ahaa ama gacan adag oo kaleetoo leh markay arkaan ba waxay ku dhahan waxayuu midkaanka ahaa calashan ayagoo quursi ahaan ama yasitaan ahaan dadkaasoo kale walaasha waa ka xanaaqi karaysaa xaq baa u leedahay kuwaasoo kale inaad ka xanaaqdo maxaa yeelay qofka bakhayl baa tahay ama waad gacan adag tahay inaad ku tiraahdo weeyaan laakiin inaad ku tiraahdo ma ahan midkaan baa tahay waayo midkaanku waxaa weeyaan qabiilada soomaaliyeed ka mid ah weeyaan taas way ku diidi karaysaa waa kaga soo horjeedsan karaysaa laakiin in aad tiraahdo ma aha ereyga midkaan qabiilka annaga ma aha in aad tiraahdo anigu te waxaan u yar arkaa inay tahay erey yar khaltan waayo laajadaha kala gedisan ee soomaalida unbu ereygaas ku baxay ereyga gabooye ereyga midkaan ereyga ma dhiman saddexdu waa isku micno haddaa adiga kala micno inay yihiin aad u haysato waa isku micno aan ahaan saan u aqaano laakiin ereyga caydaa waxaa weeyaan ereyga tumaan ereygaasaa ceeb aha ereygaasaan fiicneen in la dhaho laakiin saddexdan kaleetoole laajadaha soomaalida ayay ku baxday baan ani ahaan shakhsiyan aan dhihi karaya horta dib baad u raaci karaysaa soomaalida deegaanadeeda kala gedisan waa tegi karaysaa waad soo ogaan karaysaa markii taa laga soo tago waxaad tiraahda waana la jiri dilaa anigu kolley meelo badan aan tegay ma arag weligii qof gabooyaa tahay lagu dilayo weli indhahayga wallaahi maysan qabanin qof gabooyaa tahay wax loogu diidayana weli maysan indhahaygu qabanin dad badan oo gabooyaha baan anigu saaxiib lahay kula hadlaya aqaanaa isku meel kusoo koray weligay iyo allahay maanan arag dad saas loo xumaynayo horta meeshaad ku aragtay waad noo sheegi doontaa talabaad raba inaan kuu sheega waxaa weeyaan ereyga gabooye dadka aan aqoonin ee soomaalidaha ee idin yaqaano midkaan ama ma dhimaan waa inaad tiraahdaan annaga magaca gabooye ayaana ku faraxsanay midkaan inna loogu yeedho ma okelin ma dhimaan inna loogu yeedho ma okelin laakiin ereyga gabooye oo kale laha inna loogu yeedho saas hana loo aqoonsado aqoonsi noocaas waa inaad dalbataan
laakiin idinka dadkiini ayaan isku raacsaneen oo qaar waxay ku dhahaan ma dhimaankan ka jecel lahay qaar waxay ku dhahaan midkaan ka jecel lahay qaar waxay ku dhahayaan maxal dhahay gabooyaha ka jecel lahay marka idinku marka koowaad walaashay maxaan ku dhahay isa soo soxo hal magac qabsada halka magacana lagu aqoonsada dhaha tusaale ahaan aan waxaan u arkaa erayga hadda jiir oo kale Soomaalida qaarkeed dooli bay u taqaanaa fiiri waxa waa isku micno u leeyahay eraygaas jiir iyo dooli waa isku macna laakiin Soomaalida laajadeeda kale kadisan ayaa wuxuu sababay eraygaas inuu laba magac u yeesho laba magac inuu yeesho ay qolana jiir u yaqaanaan qolana dooli ay u yaqaanaan u fiirso sidaas oo kale toole baan aaminsanahay erayga midkaan ma dhimaan gabooyin inuu sidaas uu kala baxay walaajadaha kale kadisan imika erayga kale toole saal kale walaashi ku tusaya waxaad isku ciilkaan biin waxaadan u ooyin waxaadan uqtad u qaadin erayga imika la yiraahdo wiriiri oo kale toole Soomaalida qaarkeed wiriiri ba u taqaanaa qaarkeedna dhuxun kureeb ba u taqaanaa ana runta ku sheegay qaar wiriiri u yaqaanaan qaar dhuxun kureeb u yaqaanaan qolada imika wiriiri u taqaanaan dhuxun kureebda ku tira dhuxun kureeb maxaa la dhahaa bay ku dhahayaan kuwa dhuxun kureeb u yaqaanaan wiriiri hada ku tiraahdo maxaa la dhahaa wiriiri bay ku leeyihiin waa maqashaan filay hada ka hor qof ka yimid meelaha wiriiriga laga isticmaalo interview laga qaadayay wadamada reer galbeedka markuu qofka yimid ba waxa lagu yiraahday cuntada marka karsansan imsa xabo oo ama meeqa xabo waxaad ku karsataan dhuxun kureebaha de shan meel buu iska dhahay qofkii ilaa isagu wiriiri u yaqaanayo dhuxun kureeb ma yaqaano marka sidaas oo kale toole baan aaminsanahay in erayga ma dhimaan gabooye magac kale maxaa ahaa midkaan inuu sidaas uu ku baxay ba ani ahaantii aaminsanahay Soomaalida laajadaheeda kali kidsan walaashay inaad xumaan u aragtana ma aha laakiin Soomaalida mid ba ceebtood ama ahay caadadood aha qofku hadii lagu arko in yar in intiisi loogu dhawaaqo qof ilaa waa la arkaya iliyo waa la dhahay qof carab la waa leeyahay carabiyo waa la leeyahay qof waxa la arkaya maxaan ku dhahayay lugla laankado waa la leeyahay taas ceebtood ma huwa caadadood waana kugu raacsanahay laakiin midaan kugu raacsanahay walaashay qaali ee aanan kugu diitanin ba waxay tahay xagga guurka waa la idin sahaa blokaas taan ka been sheego xagga guurka waa la idin yasaa walaashay been ma sheegay anigu dhinacayga ma iibsani Soomaali waxba ima qabanaysa laakiin runtan jecela inaan sheego xagga guurka aad ba walaal la idin liida ma okolo Soomaali in ay idin kursato idinkana aad ka kursataan ma jeclo taas waa run been kuma sheegay anigu laakiin tan aad leedahay gacan baan loola tagaa anigu weligii iyo Allah wallahi billahi inaanan arag qof gabooya tahay ama dhibaan baa tahay ama midkaan baa tahay lagu tiriyo ama wax loogu diidayo ma arag anigu ayaan kula hadlayo qaar badan oo gabooyaha macallimiintayda ahaan jirtay iskuulka ahaan jirtay fiiri qaar badan oo gabooyaha oo maxaan ku dhahay dhakhtarinaha ayaan anigu garanayaa qaar badan oo gabooyaha oo askar ah ayaan anigu garanayaa qaar badan oo gabooyaha oo dawladaha hoose ka shaqeeyo ayaan anigu garanayaa kuwaas maxay yihiin waayay kuwaas waxay yihiin ba u baahanay halka meel ee laydinku calshan laydinka been sheegay ee la yiraahdo qabiilada tirayar qabiilada laga farbadaya qabiilada maxay horta idinku kaliya matiin qabiilada yar yar waxana ay Soomaalidu dhahdaan laankaab ama laandeer wax noocaas ay Soomaalidu isticmaashaa inta badan qabiilada la yiraahdo laankaabka ama yar yar oo kale tolo dibkaas way nila qaban horta idinku kaliya tolo ma aha ma fahantay meesha laakiin ama gabooyaha ahaado ama qabiilada kale ee yar yar ee Soomaalida ha ahaadaan lagu liido waa meesha la yiraahdo afar dhibic meesha la yiraahdo halkaas way horta meesha aad ku baaba'deen ee aad iyo aad la idinka liiday waa halkaas horta run hadaa rabtaan laakiin meelaha kale toole ee ismaamulada kale toole waa la idinka ixtiraama qaarkood dadkuna isku mid maaha Soomaali oo dhan isku qaata walaashay ina Soomaalida kala reebto waa qurux badneed Soomaalida ina kala reebto way qurux badneed Soomaali oo dhan isku qaatay waxa tira Soomaali oo dhan basidana yeesha Soomaali maanta way kala baxday waxba isku ma jiraan qol kasta meel bay oodatay mid kale talo su'aal baad weydiisay waxa tiraahday
intii dhulka la qaybsanayay gabooye xakay jireen horta su'aasha hortaaba walaal isweydiiyay anigu hortaa ayaan isweydiiyay oo idhaahday ereyga qoladan gabooyaha xakeebay tagaan ma dhaweyn ereygaas laakiin ilaahay baa ka hadalsiiyay horta markii dhulka la qaybsanayay wallahi markayga ma garanay horta meelay jireen ereygaas waa ku saxsantahay walaashay laakiin maysan dhicin xilligaas inay ka qayb galaan laakiin hadda iyo tan hadda la taagayo Soomaa ani waxaan dhiilaa aniga kula hadlay waxaan garanayaa qabiilada sidoo oo kale toole calshan ay Soomaalidu ay u liirliito oo kale toole aha oo imika aanan magacooda jecleen inaan sheego saas oo kale bilaadol u ahaayeen sidoo kale loo dhibi jiray waxay sameeyeen waa isla Soomaali qaar badan kuwaas ka mid ah imika in video-ga taabanayaan waa wax dhici kara waxay sameeyeen maskaxay keeneen way tashadeen waxay dhaheen war dhul ma lihin waynu dhibanaha waynu tulmana dadku wayna gadeedaan aynu sameeyna meel aynu xoogeen iyo xiniyeen isku geyno aan maxaan ku dhahay tuulooyinka kamid ah aynu xoog ku qabsano tuulada cidii noogu imaata aynu tigeedan bas ka dhigno wixii naga soo hadhana waan arkayna wixii naga dhintana waan arkayna ma fahantay sidii isku raaceen tuuladii waa qabsadeen dadkii meesha tagnaan jiray waxba laan dheeranahay dhihi jiray way ka baxsadeen ayaga ilaa hadda now aan kula hadlayo way degan yihiin ayagana ku raaxaysta ma fahantay marka idinkana waxaan idinku baaqayaa hadaad tihiin beelweynta gabooye in aad sidaas oo kale toole aad samaysaan maxaan ku dhahay aad duulo ama kobol xoog ku qabsataan halka xoogkiina iyo xiniyihiina aad isku geysaan kadibna halkaas aad si farxad iyo sida aad jeceshiin aad ugu noolaataan waa ani kulli ra'yigayga weeyaan taas ma karatay waayo hadalladaada waxaa ka mid ah walaasha inaad tiraahday gabooyo tashada gabooyo isku baaqa gabooyo isbahaysta inaad tiriba hadalkaaga ka muuqatay way fiican tahay inay dadku haddii mar dad isku qabiil ah ay yihiin inay tashadaan waa qurux badan aayahooda iyo masiirkooda iyo wixii nabadgelyada ku jirta inay ka tashadaan iyo horumarkooda xaq ba u leeyihiin taas idna kaagama soo horjeedsanayso ma fahantay laakiin waxaan aniga aan diidanahay baa waxay tahay inaad tiraahdo Soomaali oo dhan baa sidan aha Soomaali walaal maanta laba is haysa ma jirta labada dadka isku xigtaa adduunka isku nacab ma fahantay anigu laakiin runaan ku sheegaya ma fahantay weligii Allahay qof gabooyaha erey xumaan dhihin mana dhihi doono marka kabadhu way isciilkaan biisa waxyaabo badan wixii ayada caloosheeda ku jiray ba horta ka hadasho wayna wanaagsantahay inuu qofka bilaadmi uu nafiso waxa kuubaya calooshiisa ku jira inuu ka hadlo aad horta u wanaagsan tahay marka ani hadda waxa aan sameeyay kabadha marka arkay isku ciilkaan biisa anoo ayada iska turjumaya oo ayada inay waxan ku dhacday iska turjumaysa baan heeska sameeyay maxaa yeelay qof hal abuur leh baan ahay qof maxaa dhahay hadalladeedii anigu aan imika hees yar aan ka sameeyay markaan arkay walaashay sida isku ciilkaan biisa anoo ayada calashan inaan iska hadlayo iska dhigaya waan idin soo gudbinay heesta waan nila wadaagaya waxaan kala rabaa inaan u baaqo Soomaalida kale Soomaalida yasaysa walaaladeena gabooye ka joojiya idinkana gabooye waxaan idinka fadhinaa inaan magaca gabooye la dhaho idinku yeerno inaan magaca madhimaan la dhaho idinku yeerno inaan magaca midkaan la dhaho idinku yeerno saddexdaas xaalad kala toorta ma gabooyan idinku yeerna ma midkaan baa idinku yeerna ma madhimaan baa idinku yeerna misa waxaaba diidadiinba qabiilka dhanba in la calashan la dhaho ila Soomaalida qabiil aan ma joogi karasee Soomaalida qabiil aan ma joogi karasee runta idin sheegaya laakiin idinku waxaad kala doorataan in midkaan la idinku yeedho in madhimaan la idinku yeedho ama in gabooye la idinku yeedho bal saddexdaas idinku ku soo heshiiya markaas mid alla midka jeceshihiin baa markaas la idinku yeedhiya laakiin meel cidlaha aad ka xanaaqdaan ma aha dad waxaa jira magaca gabooye dhahay aan aqoonin laakiin magaca midkaan la idin yaqaano qaar waxaa jiro aan gabooye iyo midkaan toona aqoonin madhibaan idin yaqaano qaar waxaa jira madhibaan iyo gabooye toona aan idin aqaanin midkaan idin yaqaano markii idinku ku soo kala baxa saddexdaas magac gabooye la idinku yeedho in midkaan la idinku yeedho in madhibaan la idinku yeedho bal idinku saddexdaas ku soo kala baxa dad aan waxba ku yeelin inaad jaa'ifiso ma aha ma qurux badno Soomaali iskuma wada jirto
Soomaali oo dhan ma ku xumaynin qofka ku xumeeyo qofka ku caayo qofka dadka gilaayo qofka sidaas ku yiraahday qabiilkiisa sax iyo meeshuu tagay caadi u abaar laakiin ha isku qaadan Soomaali oo dhan Soomaali wax iska kale ma jiraan qaar waxa jirta waxaad ka sheekeynaysaa aan gelinba marka walaashi oominteeda wallahi aad bay ii dhibtay been ma sheegayo hal dhan sida cajaladiisaas iigu soo noqonaysay waan yaabanaa inanta maxaa ka hadalsii maxaa saa ku dhacday hadana wax karahay sheegtay wax garaha bay sheegtay waan ogahay xagga guurka aad bay Soomaalidu ma ogolo in laga guursado ama ayagu wax ka guursado ma ogolo taas waa ogahay waa la socdaa taas laakiin waxa taas ba aan kugu diiday laakiin inta kale toole dood baan ka qabaani waan kugu haystaa meesha ay waxa ka dhacayeen oo sax ah inaan noo sheegto ba u baahanahay marka hadda aan ka baxo barnaamijkan heestii aan ugu talagalay ee gabadhii oo hadlaysa aan anigu iska dhigayo na waan inila wadaagaya marka Soomaali Maxamedi idinkuna yareeya takoorka faraha badan yareeya aan runtan idin sheegaya yareeya barnaamij la mid intaan ku kulmtoono waa anigoo iskoora iyo xasaasi TV sidaas iyo nabadgelyo aad baad idin jeclahay